السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام السماء وين إذا هانتين بقى مال بعد ميدا تتكتين هلك إذا ونيسين وما هتغير channel official ولا ليال قلبتي waxaan rabaa in aan ka mahadceliyo sidii aan u safartay YouTube-ka ahaantii waxaan helay taageerayaal badan ee Soomaali ah oo aan ahayn cadaan ama gaal. walaalayaal waxaan ka codsanayaa ahaantii inaad isu dhaweysiin si qalbi furan maadaama ahay walaalkiin Soomaaliyeed. walaalayaal galabtay inta hore dhacay ahayd waxaan rabaa galabtay in aan la socodsiiyo hal qodob aan ku talagalay oo ah barashada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam carruurtiis in aan barano ahaantii waa isweydiinaa oo waa dhahnaa nabi Maxamed carruur ma dhalay ma usal almiya marka walaalkii muslimka ahaantii haddaan nahay muslimiin badana waa naqaanaa balse waxaa jiro dad aan aqoon marka waxaan ka codsanayaa maadaama muslimiin ay yihiin dhexna ay nool yihiin inay ka faa'iideystaan. walaalayaal galabtay waxaan ku soo talagalay halkaas qodob intadan videogan u guda gelin walaalkayga muslimka ahaantii waxaan ka codsanaa inaad igu caawisid subscribe sidoo kale like sidoo kale qaybta commentiga ay u reebtay farfarintaada aan ka soo jawaab doono insha Allah taala. marka walaalkayga muslimka haddaan u guda galno carruurta nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam aan ku salano walaalayaal nabigeena nabadgelyo naxariis ha ahaatee wuxuu dhalay ahaantii 7 carruur ah. haddama isweydiisay walaalkayga muslimka ahaw 7 carruur aday yihiin meeqa habla ah meeqa carruur wiilal cafwan. marka walaalkayga muslimka ahaw waxaad ogaataa in wiilashu nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ay kala ahaayeen 3. haddaan wiilashan ka hormarnay wiilashana ay kan koobaad ama kan u weyn la oran jiray Qaasim. ahaantii waan jecelahay inaad ka faa'iideysatiin halka kan kale la yiraahdo Cabdullaahi. walaalkii muslimka halka too ay haystaan 2 ka saddexaad aan soo galno waxa la yiraahdo Ibrahim. waan jecelahay inaad wiilashii nabigeena naxariis nabadgelyo ha ahaatee inaad haysatid. walaalkii muslimka haddaan u guda galno gabdhaha waxay ahaayeen ahaantii 4 gabdhood waxay kala ahaayeen Faadumo Umm Kaltuum Ruqiyo iyo waxay kala ahaayeen Zaynab. walaalkii muslimka 4 tibir ahaantii waa haysataa. walaalkii muslimka waxaan ka codsanaa intaad videogan markaad daawatid dhameysatid ka bacdi in aad ku caawisid waxa la ka baahan yahay. haddaan su'aalaha isweydiino nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis ha ahaatee markuu geeriyooday carruurtiisa meeqa ka dambeeyay taas da isweydiino iyada la firkeeda walaalkii muslimka ahaantii jawaabteeda waa tan walaalkii muslimka ahaantii waxa ka dambeeyay nabigeena nabadgelyo iyo naxariis ha ahaatee waxa ka dambeeyay Faadimo Rasuul oo kaliya waxayna ka dambeysay ahaantii muddo yar oo kooban. marka walaalkayga muslimka waa jecelahay inaad ka faa'iideysatid waxaan ku leeyahay meel wada la joogtid ahaantii sifa fi khayrka oo kaliya isu keebin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.